السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليش هذا إنها توش على نجاح بأفكاره. إلك استوديو دافع كشوك توا مسكين كعب ساقي كود لها كون متات هذا تكون حسب تجنا الكعب ساقي كون فيش فضلا وعسنا حريص اللي قاعد السريع عيرات سبسكرايب تلايك تشير ديل كان فرصة تسيادوركم ما تورك يجونا كوي ما تو يسووا وضنا يسووا ويحسن ملك استوديو دافع كشوك ومسكين كعب ساقي كهو مركله هذي another day another video pack welcome back asxaabta qaaliga maanta waxaan ka hadlaynaa reebta video baraha bulshada xal la soo duubay baraha bulshada la wareejinayo waa videogaas wax soo duubay inaad aragteen mooyaane horta waxa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho shalay dad badan baa ku madhay Ilaahay ha u naxariisto naxariistana Allah ka waraabiyo familiyadii ay ka baxeen Ilaahay waxaan uga codsanayaa inuu mataqana badal khayr qaba inuu siiyo inuu Ilaahay mataqana qalbiga u qaboojiyo in Ilaahay ummadda uu ka dul qaado dhibaatada qaraxa iyo waxaan haysta maalin walba ay ku dhimanayaan 500 Soomaali oo muslimiin oo walaalaha qof hooyadii la dilay ama walaalkii la dilay ama aabihii la dilay ama qof damiir leh oo islaama walaaltinimada garanaya baa xanuunka dareemay sababtoo waxaan ku leeyahay maanta hadad wax kasta hadad u fiirsato marka siyaasadda iyo waxyaalaha bararqa meelaha la kala xidhi laga tago hadad wax kasta u fiirsato wax kasta maanta aad extra waxa arkaysaa shalay markii balwadaha dhibaatada ka dhacay meel kasta loo kacay magaalo walba waxa loogu ururinay UN waxaan u qaban karin baa loo qabtay Ilaahay baa wada ku qaban kara laakiin magaalo kasta waxa loogu ururinay wax waad arkaysaa shalay guddi ka tagtay mataqaana Soomaaliland ka tagtay oo qoygo dhan wax ka soo ururisay inay tageen balwadaha inay mataqaana lacag 1 milyan ku dhow inay ku wareejiyeen Puntland ka badan inay ku wareejisay dadku waa walaal waxa laga yaabaa hooyada waa Puntland Soomaaliland baa gobolada laga sheekeeyay wax waa been laakiin waxa weey dadku waa walaalo saddex mar baan idigu celinayaa ma fahamsan videoga marka waxa soo duubay hadaan qaldarin maanta videoga waxa soo duubay nin la yiraahdo Maxamed Saciid PK Maxamed Saciid PK horta waa fanaan Soomaaliyeed fanaan reer Hargeysa waa fanaan aaminsan qadiyada Soomaaliland okay kumanaan kuna aaminsan baa jira xidigaho dhan kuwa ka dhaxaysa kuwa reer Hargeysa kuwa reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland qof walba xuquuq wuxuu leeyahay inuu wuxuu yahay lagu tixgeliyo laakiin hadda dadka sanka kala marmarto sanka ka gilgeliso aad kala marmartida si edeb la dad wala marmarto hadda maanta Soomaaliland ay amaanto wala amaana waa loo heesaa kii qaran wala amaana wala heesaa halkan ay ka baxday hankii qaranka hirgalay halkan ay Soomaaliya sidoo kale Puntland bariishiyada galmudug waxa dhan bas markaas kaga soo tagtaan Maxamed Saciid PK ay jawaabtani ku socotaa walaalow Maxamed Saciid PK dadka xidigoodu waa dhacaa fanka qofku xidigiisu waa dhacaa awalan fankaas sidan iska marbaad kacsanaanaysa marba xidigaagu dhacaya laakiin waxa la isdhaafay farsamada yaa lagu kala tagay waxa la yiri dadka maxay darta gabaygi dadku muuqa guudiyo maxay waa ka sameeyay bas kala damiro farsamada iyo araga vision ka lagu kala tagay marka Maxamed Saciid PK waxa ku kalifay idin sheegaya horta waxyaalahan inteeda badan arintan baaritaan aan sameeyay tan ogaaday dad mataqaana saaxiibadiisa iyo dad si ay ku dhow aan waraysi fiican alla yeesho waxa kugu mataqaana ugu muhiimsan asleeniga maanta waxa ku kalifay asleedahay horta waxa weeyaan maxaad PK inaad aragtay in waxa lacag ka sameeyaa kama wado lacag uu shooyo xas ku helayo oo qof nama dhahayo beesheeda iga badan say kasta beeshiinu laandheeraad u sheeganayso beesheeda iga badan maanta gidib ma dhigi kartid beelba ayaan u heesayaa oo das kuma anfacayso fanaan markaa tahayna siyaasi ma tihid ma fanaan qaran ahaw ama fanaan mataqaana maxay ahaw 100 fanaan qaran baa jira fanaan qaran oo mataqaana Kenya ama Ethiopia oo intuu soo istaago dhahaya waddankaas nacay waddanka ka baxdo ma jiro qof kasta qaran buu ka dhashay haddii adiga Muqdisho tagto oo fanaaniinta aad mataqaana ku jira qaar waa bari ku jira haddii iminka soo istaagaan dhahaan maamulkaas aan nacabnahay Soomaaliya maxay nahay xamar baan leedahay waxa ka soconayma siin jawaab baan siin lahaa haday ku dhimanayaan iyo haday ku noolaanayaan haday ku islaamiyaan haday ku kufrinayaan aniga warramay Maxamed Saciid PK maal dhawido oo lahaa inaad xasuutaan in Nairobi show laga soo diiday showgaas inkastoo dhamaanteed ka wada hadal wixii khalla wala sheegay wixii sax ah qofka haduu saxsan yahay waxa la oranayaa deeniyo uu saxsan yahay qofka laga leexdo wax xaq dar waxaan dhahay qofkan qadiyadiisa wiilkan mataqaana ikhtiyaar buu leeyahay
isagaa wuxuu aaminsan ikhtiyaar u leh ama reerkooda ama deegaankiisa ama dalkiisa ama waxa toontina wada aad tiraadaba ha u heeso ma ha u bramburo ama ha u nikiyo qof kastana saas sideed wala qof kasto meesha doonta joogo waa ka tahay I don't care laakiin hadaad u bramburo hadaad u heesiso aday ku talaa laakiin waxa weey aflagaada ummadda maadaama qof public tahay aad aflagaadinayso ummadda jawaabtaada saxda baa lagu siinayaa ogow jawaabta saxda maxaad bi horta aan inaga horreeyay intaan u jawaabin wuxuu ka faa'iido maalin dhaweeyo saas dhahayay show baa lagu qabtay Hargeysa oo $3 oo dad badan ka soo qayb showga in kasta lacag yar fiican ka soo gashay haddana kaas isaga muhiimadiisu ma ahayd afkiisana wuxuu ka sheegay in uu mataqaana lacag ka faa'iido lacag biiki afkiisana wuxuu ka sheegay inuu lacag ka faa'iido lacag $70,000 qofka ganacsadaha siiyo wallahi waan karnay laakiin ma sheegay waayo dad bay soo aaminay dad baa ayaa mataqaana ay weydii oo aamina $70,000 baa la siiyay maalinkii Nairobi walaha xamar hayga maqnaato kana hayga maqnaato ma aha inaan mataqaana waxa maro helinayo maskana dhicinayaba laakiin xaqiiqada asaas xaqiiqada ayaa asaas anaga waqooyi ka soo jeedna oo BK mataqaana isku Soomaaliland hadii la sheego haddana qof kasta fikir buu leeyahay qof kasta waa xor adiga xora dhalatay adiga xora dhimanaysa حقيقة عاد يزيد أديكو حرة أيات لاتي أديكو حرة أيات إمانيسا محمد سعيد بيك اختيار بقوليه سيدا وقف كستا اختيار بقوليه وحو دونا تاغير وحو دونا آمي السنة وحو دونا ما تقارنا وهو هذا يعيد يوحن واسكا ميرسوكي لعقبو كفايدة حدا وحا كوك اللي فيه حرونك بدن ما تقارنا ودريبا يدي شيء wuxuu maqay dalka Ingiriiska hadaad ogtahay hadaad ogeyn biciid og jirtay u malayn maayo afar qof ka hayn Ingiriisku ku maqay doorkii hore oo Ingiriiska tagay xaqeeq marka laga hadlo social media waa haystay cid walba ka hadlaysay showyo wuxuu qabtay dhigaha goostay UK dhan ka soo qayb gashay shacab show uu London ku lahaa laba mar wuxuu mataqaana u baaqday in mataqaana ay dad reer Soomaaliya iyo mataqaana dad kale oo dhalinyaro aflagaadeen u geystay daraadeed cabsi laga qabo ayuu u baaqday hadeer show ayuu maalin u qabtay jaaliyada xaafadiisa lacag u ururinayay ninka noolkiiba ku dhax go'an sheekadana ma taqaan qofku markuu maalin kasta wax kugu siiyo naayb kasta haduu qabo wax kasta haduu isku tiin haduu lacag kugu everyday kuma wadanayo qofku kuma dhelin waa halkii heestaas asma loo qaada saaxid ma naas baadaysa samaxad iga nabanta qofkan kuma uusan dhelin moogta ninka marka dhibaatada haysta hadda waxa weey noolkiisiiba boodbooday indho UK taa ku maqnaa noolkiisiiba boodbooday marka la geenay qof passport haysta ma marka qofka la geenay dalkii laga qaaday qofka waa in lacag laga shubaa waa in lacag meel laga dhigaa lacag ma taqaana ayaa meel la dhigaa oo bangi la dhigaa saad ogtihiin lacagtii bangiga laga dhigay tuu ku laaban lahaa tuu reerkiisa ula tag lahaa tuu baashaal la wandana UK toor soo qabtay toorkiisiiba maalin walba la isku baraya please BK iyo Sheffield please BK iyo Birmingham please BK iyo Leicester City magaalada Leicester please BK iyo Cardiff waxa waa showgiisiba boodbooday marka ninkan waxa lacag ka faa'iido hadda markuu saa dhahaba oo tolaayo oo jaaliyada maxayo mo faraxo wax ku sirba loo soo dhibay horta intaas ka faa'iido almuhim marka la isku tago midda labaadna laakiin isagu wuxuu dareensanayn hadii lagu siiyo 70,000 lacag yar oo xogaa iyo bari dhimanaysa bari aad cunaysa ama musqusha keenaysa hadii lagu siiyo waxaad aaminsanayn in 73 ka badan ama 80 qof hooyo in caruurtoodii waayeen oo maanta goblin joogan oo xanuunka aad mataqaana halka kaga jeejeesayso leedahay qarax waa diinaya anaga hana daayaan taasina macna kale bay yeelanaysaa hadii mataqaana lagu sii jaajuuso ama lagu sii dabagalo waxaad ka sheekeynayso macna kale ay yeelan doontaa oo soo bixi doontaa laakiin waxaan ku leeyahay anigu waxaad ka sheekeynayso ee akhrinayso waxa weyn waxaanad ogeyn adigu jees iyadoo microphone haysto sud xiran aad masrax meel aad jaaliyadiina ma beesha mataqaana aad uga sheegayso waxaanad ogeyn inay dhaawacayso 600 oo hooyo oo caruurtoodii waayay in ka badan 1,000 agoona oo aabahoodii hooyadoodii iyaga mataqaana suuqa uga soo shaqeynaya la qarxiyay in ka badan intaas oo gabdhood oo wiilashoodii waayay in ka badan intaas oo wiil oo gabdhahoodii waayay intaas oo aabahoodii hooyo oo caruurtoodii waayay inaad adigu aad qulubtooda damqaysa baanad ogeyn aad leedahay mataqaan hana daayaan qarxuu deynaya adigoo babliga waayo waa adeernad qofku mataqaan aadaad salaadiin sudaan reerkiina aadaad tahay cid kuma soo halqaday sababta lagaaga hadlay waxay qof fanaanad
qof fanaan caana tahay qof ma taqaanaa hesiis la dhageysta tahay aan waan dhageysto cid macaan taas cid xaqiis mal way fanaan cid macaan oo ilaahay codsi laakiin waxa xumaanta iyo dhisiiska in dadka la dhex wareegto shame you wax dadka qabanaya ma wax dad ma taqaanaa abeerta laga aqbalayo oo cid ka dhageysan sama waxay ka dhageysan sama inaad ma taqaanaa maalin walba 600 ama 500 qof markay dhintaan intaad mikrofon la soo boodaa tiraado qarx waa deynaya hana daay war ciidan ku deysay ciidan ku haysan saanu ma garanayo meesha joogto iyo ciidan la dagaalamay meesha joogto ma garanayo dadku waa islaayaan iyaga laftooda waqaas maalin walba dadkan sheegayso waqaas 600 400 200 intaas ka dhimanaysa maalin walba waa la qarxinaya maalin walba tala ku dhacaysa عيد دلي سنة عيد لو من سبين كرو لما ديك لا يجلس دلي عيد مال والبلو سماه دان كتير مضي أو دنا جار لبا يا دليس أنت أنا دتك متخانة هو يد المهدي ويدي أباه المي سوي نيك حاسك سوي أريد يجي ويدي ويلك ولا شيء ولا شيء ويلك ولا كيد ويدي أنا ما أنت خطر باش شاد يقول أنت الميكروفون سوق على تترادو قرح حاسك داير أنا يجانا وان متخانة اعتراف من هلنا وعسى وحلا قبل يوم معها أما تطبعتكم كهل أما فتنكم كهل أما بقول كهل it's up to you it's up to you حديقاقو هدو دعينا هورتا واسودو كو دعي فرسما كلا لا سميا فرسماديدينا دكادا aan arkayo weyniye dandaski ma soo wado walaalkayo ama qarax ya ama dugde ama hada dilaa intaasan korilla dadka waqooyiga caadigi waa shalay uma taqaana waa ka xumaadeen waa tacsiyeeyeen hatta Faysal Rabi ma hatta siyaasiyiinta tacsiinsi waa tacsiyeeyeen dadku waa dad xalaal dadkaas uma malaynayo inay ma taqaana marba ku farxayaan dhibaato ku dhacday walaalku malayn maayo saan anigu ugu xumaaday malayn maayo in qof walaalkii dhibaato ku dhacday uu farxay malayn maayo qof baydhabo jooga ama muqdisho jooga ama garowe jooga inuu hargeysa ama boorma ama taqaana siila ama berbere wax ka dhacay inuu ku farxayo malayn maayo qofka ma taqaana hargeysa jooga inuu qof garowe ama muqdisho jooga wax ku dhacay ku farxayo malayn maayo laakiin adigu hadaa lacag ka sameeyso disease-ka noocana anagoo dhan yaradiya waxaan ku leenahay waxaas cidna kuma matishid cidna kuma warkacdid ma taqaana kaliya it's your opinion adiga bay ma taqaana tahay fikirkaaga mooyaane hadaa laakiin waxaad ka ganacsato wax ku sii soconaya ma tan ay tahay barnaamij lamid ku kulmi doono waa anigoo cabsaaqi koodile dhamaan ummadda Soomaaliyeed peace